asxaabta soo dhawaada YouTube-kan waa YouTube cusub, YouTube janadkan cusub. Waxaan idinka rabaa share iyo like badan in horta YouTube ka helo, Soomaalinimana isku helo. Barnaamijka horta waxaan rabaa YouTube-kan inaan u bedelo ciyaaraha, sida weliba khaasatan teamka aniga aan taageero, kooxda Arsenal. Arsenal runtii waxay soo bandhigtay saxiixii saddexaad ee kooxda ay la soo wareegtay, khaasatan kooxda ka dhisan degada London, garoonka Fly Emirates. waa ciyaartooyga saddexaad ay soo bandhigtay. Hadeer waxay run ahaantii ay u socotaa inay la soo wareegto Gyökeres oo arintiisii weli buuq badan iska taagan yahay, waayo Victor Gyökeres waxaa dhacday mas-uuliyiinta kooxda Lisbon iyo mas-uuliyadda kooxda Arsenal way kulmeen, laakiin waxaa lagu heshiin waayay heshiiskii ciyaartooyga, maadaama Gyökeres Arsenal 5 sano uu u saxiixay, laakiin weli waxaa halkaas ka taagan buuq badan ayaa halkaas ka taagan. Marka waxaan leeyahay Gyökeres iyo ciyaartooyda kale kooxda Arsenal rabto way imaan doonaan xilli dhow. Chelsea ayada naftirkeed wada hadal fiican noo socdaa, oo runtii waxaad u maleysaa Chelsea Arsenal inayba ay waxba isku diidi karin. ciyaartooygan anaga ka dalbano Chelsea nooma diido, ciyaartooygii Arsenal ka dalbatana Arsenal uma diido. marka horta halkaas fursad weyn ku haysanaa, laakiin middan Gyökeres runtii waa mid aad u culus, waayo kooxda Arsenal dhaliyo way u baahan tahay. Gabriel Jesus waa nin runtii aan isdhihi karo waa ciyaartooy, laakiin dhaawiciisa badan ninkaas. kooxda Arsenal marka waxay qarka u saaran tahay inuu burburo heshiiskii Gyökeres, laakiin waxay ku dadaalayaan kooxda Arsenal runtii mas-uuliyiintan ay culays badan ku saareen inay ninkaas runtii sida oo la soo wareegi lahayn falkeed ay galeen. marka asxaabta kulley share iyo like idinkaana leega rabaa. YouTube waa YouTube cusub, qofka haddii la garab istaago oo markuu muuqaalkaas soo horbaxo kale macnaha haddii aad garab siiso aad u fiican tahay. marka na dhiirigeliya. kooxda Arsenal waa koox runtii aan aad u taageero, horumar badan samaysay 2 sano u dambeysay, kaalinta labaad ku dhamaystay, dhibca aan waxba ahayn laga qaadayay. 3 sano iska dhahaa 2 sano City iyo sanadkii hadeer Liverpool. marka taageeraha kooxda Arsenal waxaan leeyahay mar aan dheereen Fly Emirates Premier League Ingiriiska, mase sanadkan aan noqoto mase sanadka dambe aan noqoto, waa lagu arki doonaa. UEFA Champions League ka daran weliba kaas isaga horta sanadkii hadeer waxaad u maleysaa inaan u dhawaanay, laakiin nasiibka noo diiday oo kooxda hadda adduunka oo xooga weyn PSG aan maraweyne. runtii nin walbana waa oo Madrid xal wixii ku dhacay. PSG sanadkan waxba lagama qaban karo, laakiin kooxda Chelsea waa ognahay waa koox ayadana run ahaantii aad marka la yiraahdo nasiib, markii la yiraahdo mise markii finaal la yiraahdo kale badanaa koobka aan laga qaadano ayada qaado. marka halkaas waxaan leeyahay finaalahaas ciyaar aad qurux badan ka dhici doonta. marka asxaabta nasi dhiirigeliya YouTube-ka. hadeer kulley dad yaraa ku xiran waa ujeedaa, macnaha marka aniga waxaan rabaa hadeer YouTube-ka inaan badanaa culays ka saaro. marka asxaabta bal kor noo wada.